kulan ay soo qaban qaabisay hay'adda Garissa Peace Women Movement ayaa maanta lagu qabtay xaafadda Madiina ee magaalada Garissa kaasi oo diiradda lagu saarayay muhiimadda nabadgelyada iyo sidii bulshada ay uga qayb qaadan lahaayeen xoojinta amniga. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin culimaaddin, dhalinyaro, haween, odayaal iyo mas'uuliyiin ka socday laamaha ammaanka. Ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay doorka bulshada ee ilaalinta nabadgelyada iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa shacabka iyo hay'adaha ammaanka. Mas'uuliyiintii kulankan ka hadlay ayaa bulshada ku booriyay inay ka shaqeeyaan midnimo, iskaashi iyo ka hortagga wax kasta oo khalkhal gelin kara amniga. Sheekh Xasan Cabdi oo ka socday Subkem ayaa warbaahinta Star uga warbixiyay kulankan maanta dhacay. Meeshan waxaan iskugu imaanay dawladda iyo hay'adaha amniga u ololeeya oo hay'adda gabdhaha loo yaqaano Garissa Peace Women Movement loo yaqaano yaa shirkan maaragtay gooldhigiisa goosha dhigtay maanta waana ku mahadinaynaa mahadi Ilaahay kadib. Waxaana laga hadlay nabadgelyada iyo sidii nabadgelyo loogu wala noolaan lahaa. Ku degaan Kenyaan baan nahay, Ilaahay wadankan uu nadajiyay, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dad isku wadankood degan buu Ilaahay naga dhigay, wadankeena Ilaahay xornimada Ilaahay naga mu burburinin. Ilaahay baan ku mahadinaynaa. Waxaan rabnaa dadka ku nool Gaaris inay nabadgelyo lagu wala noolaado ayagoona loo fiirinin midabkooda, luqadooda iyo diinta maaragtay ay aaminsan yihiin ayagoona loo fiirinin. Jiiraankaada waa jiiraankaada, adiga maada keenanin. Qofka maaragtay Ilaahay application codsi umu diranin, qofka jiiraanka kule xaquuq buu kugu leeyahay nabadgelyadiisa iyo caafimaadkiisa iyo xasiloonidiisa inaad ilaaliso. waa waajib diini oo diinteena islaamka ka mid ah xuquuqda jiiraanka. Midda labaad, daroogadii baa magaaladeena ku badatay. daroogadana waxa cuno eegada waa dadkaanagi. daroogada Ilaahay baa xaraam yeelay. ummadda darooga ay dhax gashayna ummadda diiniyan iyo akhlaaqiyan iyo ummad qiyamkeedii iyo waxeedoo dhan baaba'day. tacliin ahaan bay u baaba'day, diin ahaan bay u baaba'day, horumar ahaan bay u baaba'day, dhaqaale ahaan bay u baaba'day. ummadda jirta ma ummadda darooga lagu maaragtay ay ku faaftay. waa qodobka labaad. qodobka saddexaad aan ku daray waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo tarhiib. ilmihii oo maaragtay buufis ku dhacay oo yiraahdeen dibaddan aadi oo ilmihii Liibiya magafo uu ku qabsan iyo badda cad la yiraahdo cas ama tan Talyaaniga iyo habeen dhaarba ku dhamaadaan. ilmaha gaajo ma hayso. wadanka ugu qurux badan adduunka ugu fiican oo Kenya la yiraahdo yu Ilaahay na siiyay. shaqada aniga intan aan dhanahay wadankan intaan ku dhashay halkana maarta ku dhashay walaalahay igu weyn ay ku dhasheen waligeyna baahi kuma seexanin. quraxdan aan aragtaana qaba alxamdulillaah. Ilaahay baan rabaa inuu maarta noo wabal war wiilalyahow war gabdhayahow naftiina halaagha ku ridina. qofkii meesha ku dhintay Ilaahay cadaab buu gelin. waxaa yeelay Ilaahay uu kaaga digay wuxuu leeyahay wala tulqu biaydiikum ila tahluka. war naftiina halaag aad arkaysaan maarta aadiniina oo ku ridina. wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahiima. war naftiina hadilina Ilaahay uu idin naxariis badan yahay. magaalo khayr badan oo qurax badan oo Gaaris leeraad ee wadan qurxan buu Ilaahayna siiyay. wadankiina ka shaqaysta oo tacliinta barta oo dhulka maarta guryahan quraxda badan meelka lagama dhisin. Gaaris baa laga dhisay magaaladiina. Allah idin tusiyo. waalidow ilmahaada la soco. waalidow ilmahaada yu ka tarhiibin. waalidow ilmahaada u sheekeeya meel ka fiican. war dadka maartay dibadda aad waxay ilaaliyaan ay bay wajban u noqdaan. soo saama ogdiin ya waa gaariyay dhaqaan hadee inta ma dhaqdin Allah idin barakeeyo. inta ayada yaan aniga ku soo koobayaa. Bishaar Axmed Dhaqane, warbaahinta Star, Garissa.